2026 xildhibaan waanu u diray admin and finance-ka iyo dhammaan shaqaalaha walisiiba DG-yaasha waanu u dirnay foomkii la rabay inay ka soo buuxiyaan miisaaniyaddaas waanu u dirnay wasaaradda maaliyaddu waxay leedahay agaasimo waaxeed ka shaqeeya arinta miisaaniyadda ka shaqeeya isaga ayaa u diray laba wasaaradood oo kaliya ayaa noo soo jawaabay markii labada wasaarad kaliya ay soo jawaabay marka annagana waxay qasab nagu noqotay waqtigiina nagu socdo inaanu ku odorosno miisaaniyadda mid la mida tii 2025 taas ayaa nagu qasabtay sababtoo waqti ayaa nagu socday maamul ahaan su-aashiisii labaad waxay ahayd xisaabiyuhu ma ka madax bannaan yahay wasaaradda maaliyadda haddaad akhriso xildhibaan dastuurkii aad adigu ansixisay dastuurkii hore aynu ku shaqaynayna ama idhaahda cahdigii hore laba hay-adood oo keliya ayaa ahaa hay-ado madax bannaan mid waxa weeye hanti dhowrka midna waxa weeye bangiga labadaas oo keliya ayaa madax bannaanaa xisaabiyaha guudmay ma ahayn cahdigii hore suu sheegayay ma ahayn mid madax bannaan waana sharciga adigu aad ansixisay haddase dastuurkeennan waxaa ku qoran in uu yahay xisaabiyuhu mid madax bannaan ayaa ku qoran marka aad xeerkiisa ansixitaan ayaan insha allah arrintaasna ka baaraandegi doontaan su-aasha ugu dambeysay waxay ahayd baan u malaynayaa faahfaahin ayaa la rabaa meesha ay martay dakhligii horeyna soo galay sidii aan markii horeba sheegay xildhibaan faahfaahinta annaga way naga soo wareegtay waxay la taallaa hanti dhowrka midna idinka idin la taallaa tii 25 idinka idin la taallaa tii 24 waxay la taallaa hanti dhowrka marka habiciidsan way soo socotaay xildhibaanku wuxuu weydiiyey arrinta naafada waa su-aal fiican weeye runtii halkan aan ka sheegayaa naafadu waxay ku jirtaa amniga ayay ku jirtaa wasaarad ahaanna si joogto ah ayaanu u siinaa kharash bixin u siinaa naafada mid aan ku faanayno ma ahno mid aan halkan ka sheegayno ma aha waa mid ay mutaysteen